ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka waxa ku soconaya dagaal aad u qaraar oo kaga imaanaya madaxweynaha dalkaasi Donald J. Trump kaas oo si aan caadi ahayn u beegsanaya mujtamaca Soomaalida oo ay ku dhacayaan dhibaatooyin kala gedisan aflagaado joogto ah iyo sidoo kale xoog sheegasho iyadoo markaasi dhibaatada ku dhacaysa Soomaalida dalka Mareykanka ay tusaale u tahay sida ummadda Soomaaliyeed burburkii ku dhacay qarannimadooda ay u saameysay. haddaba daawadayaal saaxiibayaal madaxweynaha dalka Mareykanka Trump wuxuu gaarsiiyay aflagaadadiisa ummadda Soomaaliyeed uu ku tilmaamo qashin. sidoo kalena waxa uu soo dalbaday hay'adaha iyo ciidamo booliis ah isla markaana loo yaqaano ICE Police si ay u soo qabqabtaan Soomaalida ku sugan dalkaasi oo qaarkood ay yihiin sharci la'aan. ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay dhibaato kala kulmayaan dalka Mareykanka. dadka Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan hore waxay uga soo haajireen burburkii wadankooda ka dhacay iyo nolosha oo aad uga adkaatay. balse hadda waxay la kulmayaan dhibaato kale. kuwani waa ciidamada loo yaqaano ICE Police kuwaas oo saacadihii la soo dhaafay Minneapolis iyo St. Paul labada magaalo ee mataanaha ee ku yaala state-ka Minnesota ka baadi goobaya dadka Soomaalida ah iyadoo dad Soomaaliyeed oo ay qabteen ay su'aalo weydiinayeen. waxaa jirta warbixino in ay dhici karto in cunsuriyiintu ay arrintan iyada ka faa'iideystaan isla markaana ay dadka Soomaaliyeed u soo gashtaan dharka oo ay ku dhibaateeyaan. taasoo looga digayo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan state-kaas iyo guud ahaan dalka Mareykanka inaanay iska aaminin cid walba oo si degan oo qaanuun ku jiro markaasi ay iska ilaaliyaan oo cid walba aysan raacin haddii xataa in la kaxeelo damco. madaxweynaha Mareykanka iyo waxa uu ka yiri Soomaalida iyo weerarada xun uu ku qaaday ummadda Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaaliyeed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beegsanaya muhaajiriinta Soomaaliyeed ku sugan Mareykanka isagoo hadallo arrimo kala duwan uu kaga hadlay oo uu soo jeediyay bulshada ku tilmaamay inay waxba ku soo kordhin. anigu ma doonayo inay dalkeena joogaan isagoo ka hadlay kulan golaha wasiirada. madaxweynuhu wuxuu intaasi ku daray in Mareykanku aadi doono jihada qaldan haddii aan sii wadno inaan dalkeena ku qaabilno qashin. hadalladiisu waxay imaanayaan iyadoo la filayo inay bilowdaan howlgal lagu sheegay in amaba ay bilowdeen howlgal lagu sheegay in lagu qabanayo dadka laga soo saaray amarada musaafiriinta ah oo ku sugan gobolka Minnesota magaalooyinkiisa Minneapolis iyo St. Paul halkaas oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo ka soo jeeda dalkeeni hooyo ee Soomaaliya ama qowmiyadda Soomaalida. haddaba maayarka magaalada Minneapolis waxa uu sheegay waa Jacob Frey ninkay dhahaan inay markaasi waxa uu cambaareeyay qorshahan isagoo markaasi ku doodaya in ay suurtagal tahay in si khaldan loo qabto muwaadiniin Mareykan ah oo laga yaabo inay u muuqdaan kuwa ka yimid dalka Soomaaliya. dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga kuwa Trump la mid ah maxaa yeelay Trump laftigiisu uma dhalan meeshaas oo awowgii ayaa tagay asalkiisa hore Jarmal ayuu ahaa cunsuriyadda halkaas ayuu ka keenay. awowgii ayaa meesha tagay waa Jarmalkii hore waliba cunsuriyiinta kuwa hadda waa caadi iyaga Mareykan dhaame. awowgii ayaa halkaa tagay isla markaana wuxuu rabaa dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed qaarkood sharciyo ama citizenship Mareykan wata qaarna ay ku dhasheen inuu beegsado ayuu rabaa. dagaalka Trump uu ku qaaday ummadda Soomaaliyeed waxa la aaminsan yahay inuu salka ku hayo dagaalka u dhaxeeya isaga iyo xildhibaanad Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaali haysata dhalashada Mareykanka taasoo dagaal aad u adag oo kula jiray bilihii la soo dhaafay ayadoo ay markaasi dagaalkoodu salka ku hayo kala duwanaanshiyaha xisbi ee u dhaxeeya labadooda oo qolana ay tahay xisbiga jamhuuriga qolana ay tahay xisbiga dimuqraadiga. Ilhaan Cumar nafsadeeda laftigeeda ayaa khatar ku jirta oo iyada ayaa xataa cabsi iyo walwal soo food saaraysa. dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa markaasi Ilhaan ku dhaliilaya in maadaama ummad nugul ay ka soo jeedo dalkaasna qaxooti ku ah in dagaalka ay la gashay dadka cadaanka ah ee majority-ga dalkaas xooga dalka ku qabsaday. dalkan Hindi ayaa iska lahayd wadankan dhowr boqol oo sano ka hor ayay Mareykanku u imaadeen. dadkan waxay ka soo jeedaan Ingiriiska ayay ka soo jeedaan waa Irishkii iyo Welshkii halka ka yimid weeyaan. marka laftigooda xoog ayay ku qabsadeen meesha Mareykan la dhaw lagu soo kala horeeyay dadka madowga ah oo 30 milyan ah cadaanku waxaan filayaa inay ayagu ka yihiin boqolkiiba ku dhawaad 60 inay bulshada ka yihiin
dadka madowga iyaguna aad u badan 32 milyan ah oo Afrikaanka ah waa kuwii adoonsiga loo soo qaatay dad badan oo Latin American oo Mexican leh oo Cubans leh oo waxa weeyaan nooc walba leh ayaa ku nool sidoo kale dadka asalka ahaa ee Hindida ahaa ayaa meeshan ku dhaqan marka Mareykan waa lagu soo kala horeeyay Trump laftigiisa soo galooti ah sida Soomaalida oo kale xogaa un buu ku soo horeeyay waxyaabaha meesha ka soconaya sidoo kale Soomaalidu qayb ay ka yihiin nimankan dhalinyarada u jeedaan waa Sharma Boy iyo Xasan Toob oo dabcan ninna uu yahay fanaan rapper ah ninna uu yahay youtuber iyo facebooker isla markaana muddo durdur media barnaamijyada ka baxa soo duubi jiray waxa sawirradooda lagu baahiyay east west page-ka loo yaqaano Twitter-ka iyadoo markaasi ay qayb ka tahay dhaleecaynta loo diray beegsiga Soomaalida lagu hayo kaligood ma ahan daawadayaal Cabdi Dhaanto ninka ay dhahaan ayaa isagana oo mar Ilhaan Omar sawir la galay dabcan xilliga ololaha lagu jiray doorashada ayaa isagana sawirkiisa la soo qaaday isagoo qori wata qori geeslaab dabadeel ku sawiran marna tuuto qaba dhalinyaradan waxay ka mid yihiin badidood dhalinyarada darbi ka boodka loo yaqaanay dhowrkii sano la soo dhaafay xilligii ugu badnaa ee qulqulka Mareykanka lagu galayay galay ayay ka mid yihiin waa taadaawada saaxiibeen maxaan ka baran karnaa yani waxa la leeyahay dad Soomaaliyeed ayaa ku lug leh beegsiga Soomaalida oo iskama dhici karto Cabdi Dhaanto Mareykan cadaan ma yaqaanaan Sharma Boyna ma yaqaanaan Xasan Toobna ma yaqaanaan taasoo ku tusaysa Soomaalida laftigoodu qabyaaladii iyo dhibaatadii iyo xumihii ay wadeen oo gudaha wadankooda ay ku hayeen oo burburka baday oo maanta in dawlad la'aan umad hoogtay umad qashin ah lagu tilmaamo heerkaas ay ku soo gaareen inay xataa iyaga oo markaasi wadamo shisheeye joogo laaji ah ay isu beegsanayaan oo ay cadowgooda isu soo raacayaan runtii nasiib darro aad weyn ayaa Soomaalida ku habsatay arrintan halkan kama dhacdee Soomaalida lagu laayo dalka South Africa oo dilalka ugu badan ay ka dhacaan ayaa lagu eedeeyaa Soomaalidu inay qayb ka tahay assassination-ka lagu leynayo qowmiyadda Soomaaliyeed ee halka lagu tirtirayo laakiin waxa ogaataan ama isbasaasa ama laabta isgashta ama isnacbaada ama isqabyaaladeeya adiga Soomaali hadaa tahay Soomaali baa tahay jinsiyadaada lagu dilaya ninkan cadaanka ah isagu qowmiyadnimadiisa iska daa waxa weeyaan dadka halka Mareykanka jooga oo cadaanka ah oo wali dadka Ingiriiska ka tagay iska daa Trump oo Jarmal ah oo Dutch ah asal ahaan iyo guud ahaan dadka halkaas jooga waxay u midaysan yihiin maanta waxa weeyaan waa Soomaalida baraha bulshada waxa ka socda hadaa aragtid habka loo karbaashiyo Soomaalida hadaa aragtid xataa waxa lagu eedeynayaa dimuqraadiga inuu qayb ka yahay faquuqa iyo sidoo kale beegsiga Soomaalida hadii Soomaaliya marka wadankeena dhisan lahayn haddaan dalkeena hagaajisan lahayn haddaan kheyraadkiisa ka faa'iideysan lahayn haddaan shidaalkii macaanta la soo bixi lahayn haddaan qabyaaladda iska day lahayn haddaan qowmiyadnimadeena ku tugtugsan macnaha aan ku mitidi lahayn يعني maanta nalama bahdileen nalama faquuqeen nalama caayeen nalama hanjabeen nalama dhaheen wadankaadi ka saaraynayo waa ka baxaysaaniyo annaga halkaas dhignay laakiin waxaan idin kula dardaarmayaa inaad iska joojisaan isbasaasida qof Soomaaliya oo miskiin oo laga yaabo inuu qoys dhan noloshiisa kafaalo qaaday kuwa waxbarasho jira iyo kuwa waxa weeyaan muxuu ahaa baadiye jooga iyo kuwa ay ku tiirsan yihiin oo wadankii shaqo ma taalo dadkii dhalinyarada shahaadada qaatay baa jaamacadaha ka baxay baa shaqo la'aan jidadka u fadhiyay nin laga yaabo qoys dhan noloshooda inuu dabkooda inuu waxa weeyaan shidayo oo shaqaysanaya ha ku mashquulin macnaha maxaa ku mashquulaysaa maxaa ka xaasidaysaa waxyaabaha qabyaaladdu ay keentay waxa ka mid ahayd doorashadii Minneapolis ka dhacaysay inay waxa weeyaan yani ay la kala safteen Soomaalidu heer ay gaarsiiyeen qabyaaladooda in wiil Soomaali ah iyo sidoo kale ay la kala safteen iyo Yaqoob Fere midkay dhahan oo si cad oo waadax ay qabyaalad markaas ugu kala tageen doorashadii marka waxaan leeyahay cidna idin ma kala taqaano adiga waxa doonti sheego marka la wada hadlayo fadhi ku dirirka ama social media ama wadanka la joogo aniga reer hebel ahayd dheh aniga maamul hebel ka imid dheh aniga halkaana ka imid dheh cid idin kala taqaano ma lahan Soomaali ma tidha Ethiopia ka imo hadaa doontid yani dhulka Soomaali galbeed oo Ethiopia hoosgeey hadaa doontid NFD ka imo hadaa doontid Soomaaliya ka imo dheh madax banaani baa raadinaya
haddaad doontid waxa ka imaataa yani koonfur galbeed, haddaad doontid meel kale ka imo bale xataa meelaha haddaa kusoo dhalatay qurbaha intii la soo socday jinsigii Soomaaliga ahaa haddaad tahay oo muuqii leedahay waa lagu yaabaa, yani qowminimadaada lagu beegsanaya. marka xaqa ilaahay ha garasiyo ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo loo baahan yahay dadka Soomaalida ah inay ka tashtaan beegsiga ku socda, cunsuriyinta ku socda. waxaase nasiib darro ah dowladda Soomaaliyeed oo wax walba lagu tilmaamayo oo si kasta loo caynayo oo si kasta loo bahdilayo in ay hadal cad oo la yaqaano Ra'iisul Wasaare Xamse aan hadal maanta meel la gaarsiisnayn ka yiri yani munaasabad isagoo taagan baa ujeeda. marka waxaa ceeb ah ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo hadda inaysan dowladooda jawaab cad ka bixin wax dadkooda lagu hayo iyo beegsiga dadkooda lagu hayo, xataa inaysan ka hadlin ilaa iyo hadda ceeb kale weeyaan. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dhowr kelmo ah halkaa ka jeediyo. mid waxay ku socotaa ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan Mareykanka. waxaa loo baahan yahay inaad midnimadeena xoojisaan, in kuwa aqoon-yahanka ay ka soo baxaan xaska ay ku jiraan, ganacsatadu inay sidoo kale xas ka soo baxaan, inay ka hadlaan si adag uga hadlaan, inay waxa weeyaan yani qaanuunka waddankaasi sharciga waddankaasi iskama beegsanayo cid kasta. in waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed halkaa joogta ay markaasi jamaacaha isqabsadaan, inay xataa isku dayaan inay ka dhiidiyaan, inay ka mudaharaadaan waxa ku soconaya community-ga xaq ayay u leeyihiin inay mudaharaadaan dabcan. waxaa kaloo loo baahan yahay oo dadka xataa kale inay indhahooda soo jeediyaan oo beegsiga iyo cunsuriyadda lagu hayo iyo midabta koorka inay ka hadlaan. waxaa kaloo loo baahan yahay hadduu Allah wada raalli ka hado dadka Soomaaliyeed dhalinyarada aan sharciyada haysan oo darbiga ka soo booday oo dhibaatada badan iyo dhaqaalaha badan iyo rafaadka badan u soo maray Mareykan, intii aad garab istaagi kartaan inaad garab istaagtaan. qofkii qari kara, qofkii waxa weeyaan guri ku hay kara, qofkii wax tari kara inaad si weyn isu caawisaan. oo dhalinyarada dhibta badan u soo maray meeshaas, qofkii marba haddii banaanka la iska goobayo qof bilaa sharciya hadde xataa caano dukaanka xabad caana oo shaah ku cadaysto dukaanka ma soo qabsan karo, waa la dafaya. marka inaad haddii adeega noqoto kale wixii aad ka caawin kartaan, haddaad dhaqaale dheertiin mararka qaarkood inaad taageertaan, ama ehel ahaan u caawiya ama Soomaalinimo u caawiya, ama yani inkastoo aan dareemayo Mareykan qof walba tiisu ay haysato la ordayo, haddana dadkaas inaa caawisaan ku dadaala. inta ninkaan inkastoo waqti badan weli uu harsay dhowr sano u harsan tahay intuu ninkaan baxayo mudahaleedka Mareykanka waa 4 sano. qodobka ugu dambeeya waxay tahay dowladda Soomaaliyeed inay ka dhiidhiso beegsiga iyo sumcad dilka iyo magaca dilka ummadda Soomaaliyeed lagu hayo, oo ay ka hadlaan oo ka filciliyaan, oo aysan aamusnaan giblada raaricin oo si sax ah ay uga hadlaan, warqadana ka soo saaraan. Mareykan anaga hadda macdanteena iyo kheyraadkeena inuu gurtuu rabaa. Puntland buu hadda u fufakanayaa inuu bari daguu rabaa. halkaas taleedyada ayaa waxay sawireen macdan in anaga marna nala caayo marna waxa weeyaan muxuu ahaa waddankeena loo soo qalab qaato wax la aqbali kara maahan. mid ugu dambayso Soomaalida sidaa isku dhaama waxa weeyaan badil qaab daro silac iyo saxriir baa ku noolaanaysaan adduunka, aakhirana meesha aadaysan Ilaahay baa og. intiina badan xalqa inaa naar gashaan, maxaa yeelay qabyaaladda Ilaahay naga hayay, qabyaaladda iyo qurunka iyo waxa weeyaan dilka iyo dhiigga iyo dhibaatada iyo waxa weeyaan waxa isku hayno iyo waxa nala ku hayo wax la aqbali kara maahan. si sheer galay muuqaalka fikirkaana hoos